bilaabaynaa barnaamij yar oo kooban aan ugu mahadcelinayno reer Dabagooyo runtii ma markii ugu horeysay ay halkan noogu sameeyaan barbecue 11 sano ugu dambeysay familigan waxay noo sameeyaan barbecue ilaahay khayr ha siiyo marka barnaamijkan wuxuu noqonaa barnaamij yar kooban waxaana la joogo wariyaal waxaana la joogo dad badan oo qiimo ku leh bulshada dhexdeeda marka insha Allah waxaan rabaa inaan u yeero ama u dhiibo mayga astaan qaran macallin Kalindi السلام عليكم. مركور وين سلام يا هو يعني نصبكم ماشان وكجوجو أيكم سلام يا سلامك بعدي شرفتكم والله ما أنت أكون من له ننتظر وحاس كله غير دبوجوية وحنا سببي أورك تودي سند والبنا الحفلة ده وجوكتو سند والبنا وانتلودينا مركا أنا سند كي كواد ما هي سند والبنا كسر قبلا بدي أكلته وها هل كان أول ما أنت فردية مركي شرب تكل بوك وسيرك هو ريا وسيرك ليش استوديا كمية يبتدي سند كمالية كمان DOA. marti sharafta waa ku mahadsantihiin oo dalkii hooyo nooga timid wasiirku ugu horeeyo isudheeg gabadheena kulligiin waa salaamantiin annaga isboorti iska nahay reero oo ma nihin oo kubadana kuma fiicnin marka waa mahadsantiin waa telefoonno kaamiro horteena ma yaalaan waxaan ku codsanaynaa maadaama ay tahay mahadcelin qofka inuu soo seef cabdidhig بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم مدن يالي مروين تدك حضورك يسوي يمد والسلام يا مركوادي مرلبات وحن ويا لني وإلهي نو قدر إلى كسوق يبرنو حفلتان سند والله سميو غير دبقوية أي سميان oo ah isu imaatinka iyo isdhaxgalka iyo farxadda walaaltinimo dadka la maqnaa muddo dheer sababtana ilaahay ka soko urweynaha today yaa qadaray aniga iyadaan casuumadeeda ku imid sanad guurada 35aad 7 sano ka hor ay u dambeysay ilaahay baa qadaray saanteena soo qaaday waxa kaliya loo taagay you baby gadaal wuxuu galay soo gaabi hal daqiiqo xataa ma hadlin waa mahadsantihiin waa hambalyeynayna ururka weynaha today macallimiinta gudoomiyaha iyo gudoomiyada Cabdilcasiis isboortiga odayaasha meediyaha waxaan leeyahay hambalyo reer Dabagooyo jazakallahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi ma sanid runtii sida daay hore u sheegay waxaana la jooga dad badan oo magac ku leh bulshada Soomaaliyeed idinkoo dhan idin sheegi karaan laakiin waa idinkaga mahadcelinaynaa sida milgaale uga soo qayb gasheen barnaamijkan quruxda badan ee reer Dabagooyo markan waxaan rabaa waxaana la jooga gudoomiyaha degmada Cabdilcasiis ubax saalax ubax rooda ubax soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم waxay ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halka waxa fadhiyo wajiyo qurux badan dad magac iyo masaf ku leh Soomaaliya legends ciyaartooyda cuslaatay yaa ciyaalka xaafadana ma dhihi karo reer magaalkii hore halka waxa fadhiya aniga gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Banaadir oo maanta asagana marti noo ah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta sharafta leh ee noo sameeyeen ururka today iyagoo na soo casumay gudoomiyaha annaga waxa naloo soo casumay asna waa gudoomiyaha arrimaha bulshada anna waxaan deganahay degmadii iskuulka sportska club house Cabdilcasiis ciyaartooyda mar walba
waxaana la dhashay rag badan oo ciyaartooy ahaa oo hadda qaarkood halkaan ka maqan yihiin qaar dhintay iyo qaar nool aniga aan ahaa macalin gabaasha marka bahda sportska waa ka tirsanahay reer dabagooyana waa waa dawlad gooni u tuman waxaad u malaysaa inta ay qabateen Soomaaliya mas'uuliyiinta soo maray inaysan qaban waayo waxa ka shaqeysaan arrimo bulsho iyo Soomaali daafaheeda inay isu keentaan iyagoon qabiil iyo qurun midna isugu imaan ee isugu yimid mabda iyo saaxiibnimo waa soo dhaweynayaa guuleysta anna waa idinkaga mahadnaqay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyahayga Cabdicasiis gudoomiye ku soo dhaweey heerkan soo gaarsiin marka waxaan rabaa idinka iyo gudoomiye Cabdicasiis inaan iska keen dhaxbaxo gudoomiye ku soo dhaweey بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا مادسكله goobtan soo waafajiyay dad badan meel iskaga yimid nin walba waxaan rabaa fadhigiisa wajigiisa iyo maqaamkiisa inaan ku salaamo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan rabaa ugu horeyn inaan u madaceliyo familka guushaan fidiyey oo qadadan quruxda badan oo dareemay in calanka Soomaaliya maanta iyaga isidaan waxaan leenahay waxa aad samayseen abaalkiina dadkan Soomaaliya soo keenteen ma gudi karaan laakiin Ilaahay xasanaadkiina ajirkiina Allah sawaabkiina Allah idin siiyo waalidiintiina maxaa la yiraahdaa insha Allah waxaan rajayn doonaa ajir xasan inuu Ilaahay ka siiyo inta loo la awlaadu Ilaahay baar ha u dhigo inta kadib waxaan arkaa Soomaali isjecel laakiin aan dalku ugu heelin meesha ugu qaaday marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed isjecel meesha oo joogo maxaa la yiraahdaa dadkii hore ahaa adeer iyo xadiis lixdan afartii dalka ugu dambeysay marka waxaan dareemaa Soomaali inay baabi'ir rabto dalka asii joogo waxaan rabaa inuu soo laabtaan wadanka jaceelka dalka la geeyo waxaa kala dhinaciis kala fadhiin dhahayo 82 aan soo baxay suurtagal marka ma noqonayso dalka waxa sababta bixin karo nin xadaaradan soo arkay waxna ku bartay in wadankaas wax laga bedelo u baahan tahay inaan imaatiin waa rabnaa insha Allah waan idin kala jeedin waxaan ku daynaa sida hadda isku cazunteen ururka today idin cazumi anagana inaan idin cazumi doono waqtida dhow insha Allah ma sha Allah waxaan ku bilawnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan ku dhashatay aan Soomaali aan arkinan waxaan isku keenaa sanadkii waxaan nagala shaqeeyo dacar oo hadda la socdo waxaan ka keenaa Ingiriiska Canada maxaa la yiraahdaa iyo maxaa la yiraahdaa Mareykan waxaan rajayn doonaa carruurtaas wax kale looma sameeyeen dal hooy inay leeyihiin la dareensiinayo idinka la dareensiin karee dalka imaada idinka askar ina imaatina muhiim ah ha waxaa la rabaa adeer inta fadhiishan gaaynu ka sheekeynay iyo wuxuu ka sheekeynay baraka abdow iyo marhay dhaafin iyo waxa ka sheekeynaa waxa iga soo fikirtay waxaas waa baabeen in ahaa iga soo fikirtay haddana waa isciliyay marka imo adeer insha Allah saasar ayayna insha Allah dalka waa idin baahihay waan ku faraxsanahay soo dhaweyntii iyo maxaa leeyahay qadarinta iyo intaba waxaan dareemaa inaan Soomaali ahay Soomaali u dhiman doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh